ahayd amniga ka warrama xooluhu waxaa la dhaqi karaa ay noolaan karaan marka la helo kala dambayn iyo ismaqal iyo cid xoolahan xuquuqdooda dar yeesha oo fulisa waxaynu u baahanay dhulka inaynu u qaybinno meelo la kaydiyo seera oo markay abaaru baxaan lagu baxsado waa inaynu helnaa inay dawladdu taa awood u hesho oo aanay dad gaara is hortaagin waxaynu u soo joognay sanadkii u dambeeyey seero kastoo loo eedeeyay inay dadku dhintaan oo kooxis urusta ay rasaas kala daasho dadkii danta guuday marka waxaynu u baahannahay horta inaynu keenno kala dambayntii in dhulka la qaybiyo oo si qaran loo eego oo dhul xoolaha la kaydiyo xoolaha la dejiyo oo socodka laga daayo dalkeennu taa waa u qaybsamaa waxaynu u baahannahay in xoolaha tayadooda la kordhiyo intuaana soo saar iyo intuu ku korayana dhakhaatiir cilmiga loo waxaynu u baahannahay in quud kale aynu helno dadkao dhan waxaynu u baahannahay inaynu maalintii intaasoo xoolaa qolno oo nin waliba nuskilo hiliba cuno waa inaynu dadka barraa digaaga kalluunka iyo wixii kale khudaara si ay xoolihii usoo kabtaan xaggii magaalooyinka hargeysa waxaynu u baahannahay dadkeena reermiyiga xoolaha dhaqa oo aqoon reermiyiga u leh in aynu barro aynu maalgelino sida loo dhaqee casriga ah xoolaha raxiim xooluhu waa lafdhabarka dhaqaalaha somalilan waana ay ku dhisan tahay nolosheennu khayraad kaloo badanna waynu leenahay oo kalluun ka mid yahay ama shidaalku waxaynu kaloo leenahay dhul aad u wanaagsan oo beeraha ku wanaagsan xoolaha haddaan soo qaadano suuq uraynu ku xidhannahay somalilan waa suuqa carabta waxaanu haynaa qorshe aynu kaga maarmi karno sanad gudihii suuqa carabta oo lagu furayo suuqyo cusub oo xoolaheenna hirkeena karo waxaanu kaloo haynaa ognahay qorshe insha allah lagu soo saarayo shidaalka somalilan waxaanu shacabka u rajaynaynaa aanu ugu bushaaraynayaa in 2019 shidaalka somalilan la soo saari doono kalluunku waxaanuna soo sheegaa mararka qaarkood kalluunka laga xado somalilan inuu hafabilin yahay sanadkii ama miisaaniyaddeena in ka badan waxaanu xoolaha u sheegi iyo habka aynu u dhaqanno xoolaha in wax laga bedelo oo la casriyeeyo habka aynu ku dhaqmayno xooluhu way dabargo'ayaan waayo dhulkii waa la waageertay abaar soo noqnoqotaa jirta abaartana waa in qorshayaal baanu haynaa lagaga hortegayo iyo in la sameeyo kayd qaran oo lagaga badbaado abaaraha waxaanu haynaa qorshayaal lagu daryeelayo oo lagu taakulaynayo dadkii abaaroobay ee caydhoobay ee xoolodhaqatada ahaa ee xaafad walba ama degmo walba maanta ku daadsan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaynu eegaynaa musharax waxaa imika musharax aan idhaahdo faysal oo inoo bilaabay isagu su-aashan jawaabteedii hore ayaa waxaan jeclahay bal faysal waxyaabaha kaaga soo baxay fikir ahaan maadaama aad dhegaysatay labadii musharax waxa aad is leedahay waad ku raacsan tahay iyo waxaad ku khilaafsan tahay horta waa sidaan kuu sheegay nimankan waxba ma hayaan aan ku warramay cabdiraxmaan wasiih islaamiyad taawili ku leeyahay shidaal baan soo saaraya 19 hawl muxuu si u soo saaraya kumbaniyaashii ma samaynayaa climate-kii wanaagii nabadgelyadii lagu soo saariyay kalluunka dibadda dee saaxiibkay muusan xoole kaga dhimato arsaaqad kale uma arkayeen waan iskaga mid maahay in xoolaha la hagaajiyo suuqa la keeno waan iskaga mid nahay laakiin dhaqaalaha la korinaya dee xoolo qura ma ahay diversity baan u baahanahay oo kalluunkii mineralskii gaaska waddankan waa buuxaa marka waxaan leeyahay nimankani ma leh ma hayaan siyaasad dhaqaale ma hayaan iyo mooji buwaagti loo soo qoray inay ka haleeli waayaan ma hayaan anigu waxay waan hayaa xoolaha iska mid baan haystaa
su-aasha la weydiiyey waxay xoolaha maxaa laga qabanaya su-aasha taalla waxay xoolaha maxaa laga qabanayaa marka annagu waxaanu sheegnay xoolahii sidii loo noolaynayo ee loo tiro badinayo kadibna loogu doonayo suuq iyo iibgeyn waxaanu kaga duwanaya iyagu waxay ka bilaabeen cabdiraxmaan oo kale xoolihii suuqay u doonayaan horta xoolihii ma lahaya iyaga sidee loo naaxinaya iyaga sidee loo tarbinayaa baa taalla faysalla dee waa waaya arago waa nin 2 sano oo gooro hore tartamado dee cilmi badan iyo aqoon badan looga leeyaho isaga waxba la murmi kari maayo haddii aan su-aasheeda u soo noqdo waxaynu u baahannahay xoolaha dadka cilmigaa inaynu u tababaro inay nolosha inay la qabsadaan habka casriga xoolaha loo dhaqo oo tirada badan iyo tayadooda kor loo qaado waxaan ku raacsanahay in labadoodaba in marka xoolihii la tayeeyo loo helo suuqaq badan ay maraan waxaanu isku raacsanahay in la helo dhaqaale kale oo ka duwan xoolaha sidii gudoomiyaha lagu tiirsanaa saaxiibaday wax badan kale waxaan filayaa inaanu iskaga mid nahay xoolaha gaar ahaan in dee la casriyeeyo sidaynu u dhaqanno in seeraha la xoojiyo aad baanu anagu hoosta uga xariiqaynaa in kalluunka la dhiirigeliyo in shidaalka la soo saaro waxaanu ku talagelaynaa in gogol xaal wanaagsan loo sameeyo oo muranadii hore u dhacay aanay u dhicin iyadoo la tixgelinayo deegaan kasta khayraadka laga helo lagu tixgelinayo waxaanu qabnaa inaanu xallili karno mashaakilada deegaanada ee ku saabsan khayraadkaas qorshahaanu haynayna hadday suuq tahay xoolo iyo hadday tahay shidaalba waa qorshe concrete oo la taaban karo runtii waxaan si mug iyo milgale ugu mahadnaqayaa madaxweynayaashu ay ka xanaaqayaane musharaxiinta intaa hortiina taagnayd sida milgahale runtii u kala qaadanaysay dooda ee kaftanka iyo qosolka ku jiray imanka waxaa la gaadhay wakhtigii aynu geli lahayn break timeka laakiin kooxda inspire ayaan ku wareejinayaa oo iyagoo laftoodu qadar ogeysiisa idin soo gaadhsiiya tilmaamaha hannaanka codbixinta doorashada hore u soo qaado kaarka codbixinta adigoo oo tegaya goobta codbixinta ee ku qoran kaarka fadlan si nidaamsan u soo gal goobta codbixinta tus kaarka codbixinta gudoomiye ku-xigeenka goobta si loo hubiyo in